madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo weli safar shaqo ku jooga deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa maanta waxa uu gaaray deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug wafdi hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa booqasho kooban ku tagay deegaanada wargalo iyo sidoo kale galbarwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug booqashadan oo qayb ka ah safarka nabadda ah uu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ku marayo deegaanada gobolka mudug ayaa waxa deegaanadii uu maanta tagay ku soo dhaw bulshada qaybaha kala gadisan madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaana la hadlay bulshooyinka kala duwan ee uu kula kulmay deegaanada wargalo iyo sidoo kale galbarwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug reer galbarwaaqo badanayaal iyo marmooyin walaalayaal waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta diiran kalgacalka iyo walaalnimada leh aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa reer galbarwaaqo sida magacu yahay galbarwaaqo quruxda iyo sharafta iyo soo dhaweynta idinka muuqatay magac waa isleeyihin waa idiin nimid waa idin soo salaanay waa idinla xogaalnimada idiin noqono safarkii nabadda iyo xoogaalnimada qayb ka mid ah oo safarkaan yahay aan ku soo gaarnay waxaan idiin wadnaa galmudugta cusub oo midowday oo wax qabsanaysa oo tashataan idiin wadnaa baahiyaha iyo howlaha la sheegay oo guddoomiyuhu xusayna insha allah waxbaa laydinkala qabanaya aad iyo aad masantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhignay isbitaalkii magaalada galbarwaaqo sidoo kale waxaan halkan iyadana dhaxdhigeeda hawsheeda ka mid ah iskuulkii magaalada galbarwaaqo dadka deegaanku waa tashadeen waxbay qabsadeen iskuulka wax fiican baa uga diyaarsan inta dhiman annaguna waxbaan qayb baan ka qaadanaynaa waa joogaa wasiirkii waxbarashada wasiir tan adaan noo qaadaya qaybta aan ku leenahay galmudug ahaan iskuulka isbitaalkana sidoo kale waxaad diyaargarow fiican baad samayseen annaga waxaan u jecelnahay cid intii wax qabsata oo meel wax soo gaarsiisaan dadka u jecelna inta dhiman baan qaadanaynaa sidoo kale waa joogaa wasiirkii caafimaadka wasiir axmed faylkaaga gasho waxa ugu soo horreeya soo geli waa tashadeen reer galbarwaaqo